مسألة آدابta ku saabsan waa mas'ale diiniya مثلا diin ahaan ma bannaana timaa badhna in la reebo badhna la daayo badhna la xiiro waxyaabaha qariibka ah waxaa ka mid ah waxay soomaalidii magaalada joogi jirtay ceeb u yaqaaneen ayay iminka kuwan dambe ilbaxnimo ugu yaqaaneen مثلا magaalooyinka waxa la is odhan jiray hebel waa dhoorka soo taqaaniin soomaalidii baadiyaha ku noolaan jirtay gafeedh iyo biyo iyo waxba ma jirin marka carruurta way u xiiri jireen laakiin inamada iyo hablaas ay u kala soocaan qaarna food bay u samayn jireen qaarna dhoor bay u samayn jireen ma bannaana diin ahaan in qofka timaa inta in laga xiiro in yar la soo reebo magaalada marka la yimi qoladii magaalada joogtay qofka ay leeyihiin waa reer baadiya ama waxba garan maayeen waa dhoor rabay odhan jireen iminkana dhooranimadii baa faan idiin noqotay waayo gaal dhoorraa ba aragteen waxaa cajabta qaba gaalku markuu dhoorraha noqday ayaa dhooranimadii halka kan faan ka noqotay waxaan leeyahay dhaqan waliba oo dad leeyay wax xun wax san iyo wax wanaagsan baa leeyay diimaha waxa loo soo dejiyey in lagu saxo dhaqamada wixii qaldama marka ka diin ahaan muslim baynu nay dhaqankeena waxa ku jira qaldan inaynu saxanna bayna saaran inaynu dhaqanka ka guurayna ma saaran laakiin waxayna saaran wixii qaldani ku jira inaynu saxanno de kana ay weydiinaysaana waa dhaqan gaalada ma ku dayanaa un ilaa kaama aha soomaalidii hore ma ku dayanaaye waxaad u jeedaa un in gaal maraykanka degani kuwan baaskitka ciyaaraha xiirtay dadkoo dhan ugu xiirtay xiirnimaadkii waa noqday iminkay gadhka la baxeen dadkii oo dhan gadhku la baxay gadhkiiba ammaan noqday yani gaalkaa markaan joogee maalintuu xiirtana inaad xiirato maalintuu timaa la baxana inaad la baxdaa waa ceeb waxay qof muslimoo kaljar iyo dhaqan loo ku faanaya inaad ahaato